saaxiibayaal marka laga hadlayo maalgelin waxa ugu muhiimsan saddex shay inaad si mug leh u maalgeliso intaad nooshahay saddexdaas shay maalgelintoodu waxaad ka heli doontaa faa'iido soo noqoshada ugu weyn ee aad noloshaada ku arki doonto kow maalgelinta ugu horeysa ee ugu muhiimsan waxaad ku samaysaa naftaada ereygaa laga yaabaa meelo badan anigoo kale inaad maqasheen aan leyd ku shida laakiin inaad naftaada maalgeliso waxa looga jeedaa naftaada ku maalgeli inta qofka hore u wada inta qofku uu wax ku noqdo inta qofka qiimo u yeesha inta qofka nolosha dhexdeeda wax uga goysa intaasoo ah inaad naftaada ku qalabaysid saddexda lama dhaafaanka ah oo ah kow inaad aqoon ku qalabaysid laba inaad ku maalgelisid xirfado saddex inaad ku maalgelisid wacyi iyo manhaj furan saxan oo togan oo wanaagsan marka intaa ay naftaadu isla hesho waxay taagan tahay barbilow weyn oo ay ka dhaqaaqdo noloshana ku maamulan karto way ogaalkii iyo aqoontii bay haysaa farsamooyinkii muhiimka ahaa iyo xirfadihii aasaasiga ahaa ee nolosha qurxinayay bay haysaa manhajkii iyo habfakarkii iyo adduun araggii saxnaa ee wanaagsanaana way haysaa arrinta labaad ee maalgelinta muhiimka ah kaaga baahan waa inaad maalgeliso caafimaadkaaga inta badan caafimaadkeena waxay baynu u qaadanaa inuu yahay wax isagu iswadaya oo waan ilownaaba inuu yahay wax u baahan ka shaqayn maalgelin ka warhayn iyo maaragtay in qorshaan ka yeelan marka caafimaadku waa gaariga keliya ku wada ee ku geynaya meesha doonto waana nimcooyinka ugu waaweyn ee ilaahayna siiyo waana wax keliya aad dareemaysidun markuu kaa maqan nabiga bay noo sheegay sallallahu alayhi wasallam caafimaadku waa taash saaran madaxa qofka caafimaadka qaba mana arko ilaa qofka xanuunsanaya ee caafimaadkiisu ka maqan yahay mooyaan marka caafimaadku waa tiirarka ugu waaweyn noloshaada ee la'aantood aanay waxba soconayn haddii aanad caafimaadkaaga maanta hayn wax kastoo laga hadlaa wax kastoo kale oo ka soo hadhaa macno male dhadhan ma samaynayo ujeedada ugu weyn waxay kuu noqon inaad caafimaadkaa dib u heshid si aad noloshii kale iyo waajibaadkii kale u gudatid marka arrinta labaad ee maalgelinta ugu muhiimsan kaaga baahan waa inaad caafimaadkaaga maalgeliso layli joogtaa cunto caafimaad qabta maaragtay nasasho fiican inaad caafimaadkaaga si u kas ah oo baraarugsan qorshe uga yeelatid arrinta saddexaad ee faa'iidooda ugu badan kaaga soo noqonayso ee maalgelinta ugu fiican ku samayn kartaana waa inaad maalgelisid ganacsi wax soo saar leh oo kuu dhaweeya madax banaanidaada dhaqaale ee aad leedahay maalin uun ka naso inaad lacag u shaqayso oo gaad in maalin maalmaha noloshaada ka mid ah ay lacagtaadu iyada kuu shaqayso saddexdaasaa ah saddexda shay ee ugu muhiimsan ee aad maal gashan karto marka saddexdaa ku dadaal waxaad isku daydaa inaad saddexdaa qorshe ka yeelatid si aad u maalgelin lahayd waayo kuwaasaa laga helaa faa'iido soo noqoshada ugu weyn ee maalgelinta magacaygu waa Faysal Transfer Galaxy waxaan ku xirnaa muddo 3 sano ah oo macaamiil lahaa Transfer Galaxy waxay ii fududeysay inaan caawiyo walaalkay si uu u gaaro himilooyinkiisa waxbarasho